qodobka labaad waxa waa macallinka waa yaqaanay laakiin maadada ma gaarsiin karo sidii la rabay maadada waa taqaanaa laakiin sidii laga rabay ma gaarsiin karto marka qofna kugu cuudaari maayo maalinta macallin ardaydu ay arkaan indhaha ka marmarigsiinaya si ay wax ka yihiin markuu arkaan lagu dhaafi maayo ilmuhu ama waalidku haday ilmahooda kufaan way ka naxaan laakiin waalidku markuu kufo waa lagu qoslaa macallinka codkiisa waa iska hooseeya kuwaas dambe wax ma gaarsiin kartid sheeka u taala iyaga mar mobilooda u furan hadii laga soo xareeyo wax kale haystaan macallinka codkiisa cod khayro dheer oo galaasada kala dhagax ka jabiyo ma aha cod dhaxdhaxaad qofka lagu gaarsiiyo waana ognahay umeena marka codku uu wanaagsan yahay marka la isku mid ma codku indho xataa leeyahay indho qofka seeka adii wareega leedahay marka macallin ardaydu wada gaarsiin kara wixii oo ku filan waa mid aan rabno codka macallinka duu hooseeyo codka ardayda kor u kacaya marka macallinka codkiisu gaaban yahay hatta hadii la waxaas ka sameeysto ku hadlo macallinka fasalka kama qayb ardayda ulama macaamilo si wanaagsan adna lagu la macaamilo ma si wanaagsan misi jeesatay yawa ayaa maxal dhagax tuuriya dhash yaa tuure adba walad baqaro anagoo fasalka hoose dhigana baa waxa macallin baa noo dhiga dhash dhagax ku dhaca yaa waa yaa sheegay banaanka la geeyo la seexiya kulligeen xabadka عبارة قرآن صوصحنا وصون قلنا دش هذانا يا هو أطباء ما أنت لما قرآن أجرينا مرك رئيس أرضه هذه وحوار قمتها سوى نحسن ومعامل هذه الأرض ولا قمتها ولا قرآن قمية وهاي كفر أفريقيا بحكي جري ميدا بتكرك قصدك عدان كأي مارت ميدا بتكوران ودوليستان وقوميستان مدوقة نين عدانا وحكوا يري buu ka hadlay macallimiinta oo ka hadlay buuga nin cadaana wuxuu ku yiri ninkii intuu u yeeray meeqa sana ay shaqeynaysa 15 sano intaas kuma caynina ha hada cunto ikeed soo wax kaama sheegeen ha waa dhamaatay raxas gudbe maalmahaas oo hadaan shaah saasa keena may bisteeki sidaas may anjeera saas may keeg noocaas ay doorsho maya waxaas waa dhamaadeen buu yiri anna mid baan ka ballan qaadayaa buu yiri maraq dambe inaan candhuuf kaaga tufin 15 sano caay 15 sano candhuuf cun ardayga hadaanan ixtiraamin hadaanan qiimeyn candhuufta waxay ku jirtaa waxbarashada ay ku taalaa dhulka lagu gargaraaco hal qayliyo hal lagu tashado in maartay lagu fawdeeyo معامل قاعدة لكن قف وناكسن أو لجعل يهي أو أرديد سجعل أو صور دوية يا أو والد كودو أبابية مربي قالوا جعلانيا أردا دا ساعات كده تكلسوني يكون جعل يهين وحتى وحوي كل وضيان عشان كل وضيان أي قارك أمسنية لكن هذا أردا مارته معامل كده دقن كأحماده أحبرش هذا لقى جوابها ماشي marka wax laga qaado waxba laga qaaday buuga laga jeexiya imtixaan laga xadiya casharka laga dheeliya dhagxaan la tuuriya ha sameeyne marka adaa laga raasay macaamil la oonay ogaajiso in macallina wuxuu ii sheegay soo ka ana seminar saan oo kala bixinay tababar baa wuxuu igu yiri anagoo iyadoo fasal lagu jiro baa macallin mid baa gadaal ka fooriyay arday fiiq yaa waaye معلنك بوقت سقاطه هيري واسك بحياني صح ديتها لكن انت بحين با wax yar idin sheegaya wax yar idin sheegaya habeen dibad anoo meelaha soo socdo 5 saac gaari wata kulaha baa waxaan arkay gabar jid maraysa oo iska daalan hore u qaaday xaafadeeda u dhaweeyay markaan xaafada u dhaweeyay oo ay degan rabtaa ay dhahay Allah ku nabad yeelo nambarkaagana ii sheeg waxay nambarkay kuma siin karo sababta wiil aan walaalnahay oo dhib badan baa jiro isku fasalka aw dhigto baa jira hatta kulaha maalin dhaweed ya
wuxuu caan ku yahay fasalka ku fooriyaa fiiq ardada hal mar fiirisa isagii sheekada wuxuu u keenay inuu wax ku xalisto ciduu rabaa ku tunta kale laakiin sheekada wuxuu u keenay hal mar la wada fiiriyay marka mararka qaabkood fiiriyay waxyaalaha aan xalinayno inteena waa soo marnay fasal arday ay joogaan oo rabsho sameynay kul ardayna waa ka ahaan jirnay mar waxa ku soo martay in lagu weydiiyay sheeg oo sheegi weys yaa waxa sameeyay waa amstay waa dhowr siyood ma taqaanid waxa yiri ama fooriyay waa ka cabsanaysa oo ka xoog badan yahay banaanka dil la gaaro waa laga xoog badan naftaada u baqday ama adaa ahaydba intaas adoo wato oo aamusan oo iska gabadh ina cabsanayso ama macallin noqotay arday waxa leedahay istaag sheeg soo sheega shal adba sheegi jirinay sheeg maxaan sheegaa shalay meesha ku jirto ku jira waxaan ardayda marka waxa u baahanta macaamilkeena inaan fiirino waxyaalaha qaar kood tixgelino arday yar miskiin aan waxba galabsan dambi caam ah lagu wada qaado galaas oo dhan jamaaciye ilmaha dugsiga quraanka u shaqeeyay la marayo qaar xataa quraan akhrin markii ay macalinku soo marayaan ama macalina waadiga laftaada iska sheegaysaa alle meelaha iska sheegay markaasa ushuna maraysa saf marka saf mar ciqaaba qof aan waxba galabsan adiga waa soo martay shalay waa dhibsan jirtay ardada waa iska dambiga ka gashay waa ciqaabtay waa dhibaato marka waa mashaakilkaas waxa kamid ah ardada in si dhaqan xumaah loo dhaqmo aan qiimeeyno qalad hadee dhacaan qaladku waa shay qofkuna waa shay qofkuna waa qof qaladkuna waa shay aan kala saarno qofkan waa xun yahay ma aha wax qaldan uu sameeyay wixii asaga ilaali naftiisa ilaali ha ceebeynin mid baa aragtay adigoo su'aal weydiiyay mid isku aadiyay su'aalaha soo dhigtay kamid baa dhuumanay mid kale isku aadinay iska dhaaf kuwaas maxaa ka rabtaa ha ceebeynaysa shalay soo maray mar wax isku aadi jirtay qofan wax isku aadin ma jira amayna waa su'aal walba naga naqaan qaar isku tan yaa ka dhaaf waa dhig jirnay ama hoos fiiri ardaygaas ina meesha ka soo bixiso maxay faa'iido taraysaa waxay taraysaa ma la faa'iido waa ina ceebeyso kaliya soo kama fiicna marka ardaygu inuu soo wax garaneyn hadhow marka banaan ku aragto ama marka inta u yeertid waxa tiraahdaa 10 kasa maxaa kugu adag meeshi u sharax su'aalo ka weydii su'aalaha ka jawaabo banaan ku soo weydiisay su'aalaha ka jawaabay maalinta kala fasalka ale yaa ka jawaabayo su'aal hebel sa gacan taagay shalay ilaa u sheegtay niyadan u dhisantay nin baa soo wuxuu yiri ana qisan ku sheegay kula hooyadii macallin oo ahaan jirtay markaas waxa igu tiri waxba ii yeeris habeenkii markaas aan qori waayay erayga roob markaas aan igu celcelisaa roob caawa dhan roob aan qora waa buuxii si fiican u bartay subaxii markii galaaska la tagay tiri yaa roob qori karo gacanta taagay maalintaas roob waa qori soo roob igu daay oo u fiicnaa ilaa hadda wax barashaan ku jira kula roobkii markuu indhahu ii furo kula roobkaas marka waa qof waa anaga dhasaas oo kalena waalidana qofkan wax ma la barayo inuu qaldo maxay dhibaysaa qaladii ka mid tahay barashada laakiin macaamilka hagaaji maali ardada aan 10 laga qayb gelin kaligiisa iska wata baaninka ila tahay dadka ma ay jecla ciyaarta marka la ciyaarayo qof iska wata kaligiisa ila googooyo goolka geeyay waxay u baahan tahay ciyaarta wada jir hayla ciyaarta laga bartay ka mid tahay iyadoo waliba iska ciyaara dhab ma haya dhabtii ahayna iyada ciyaar waa magaceeda ciyaar way qofka kaligiisa waa la eedeynaya macallin galaas kaligiisa iska wata ardada wax ka qayb gelineen su'aalaha aan weydiinin aan oranayn waa maxay talaabooyinka looga baahan yahay macallinka soo fasalka u maareeyo hatta ku bilaabina 10 ka ardada laga keenaya kadib macallinka ugu daraya xoogaa markuu maray waa joojinaya fasalka ma aha maareysan mid aamusan meel aan la fiirin neef ba aan la maqal dhaqdhaqaaq uusan jirin ma aha fasal caadi ah way wax baranaya wax isweydiin kara hadda maanta meesha ana fadhidaan macallimiin baa tihiin wala isfiiriya hadhow
qaara mobile la soo baxaya qaara mid kale la hadlaaya haddii qof kulligiin la idin bixiyo banaanka meeqa ku soo haraysinta macalinka xalintiisu inuu wax bixiyo ama uu xanaaqo giirka iska kiciyo ma talayso marka fasalka ardada ka qayb gali waxa kula wadaagaan casharka ayaga ka bilowdo casharka ayaga ku dhamaado casharka adigu ka bilowdo adigu ka dhamaado cashar maaha casharka adiga ka bilowdo adiga kugu dhamaado ayaga ka bilowdo ha ku dhamaado ardada weydii ka qayb gali ardadaas aday ku fiirsanayaan saa u macdud oo la macaamilayso casharo badan ay ka qaadanayaan macalinka fasalka ka carooda ee carooday bax marka aad tiri ardayga bixi maayo ku yiri ee adigu carooto xafiiska aaday soo carootay xafiiska tagtay adoo xanaaqsan maxaa dhacay maamule fasalkaas aniga ardaygaas lama wada qaado ama asaga baxaya ma ana baxaya maamulku waa kula hadlay waa lagu soo waday fasal ardayga waa la saaray adna waa lagu soo caraceliyay fasalkaas ardayda yar baa dhiganaysa gabadhan ardayda yar dhiganaysa markay weynaatay way carootay gurigeeda ka carootay ilaa casharkaas macalinka ka soo baratay kaliin hooyadeena soo caracelin doonto inteenan fasalan ku wada jirnaa qof kasta haduu laba qof uu eriyo maamulka meeqa u tagaysa hal fasal ma ho adii laba leedartay mogtahay laakiin xagga meeqa joogta hal fasal xagga fadhida adii marka waxa tigay maxaa labadii igu soo celisay fasal u fadhiyo meel oo alla soo wada eriyo macaamilka wanaagsan iyo casharka oo kala qayb qaato waxa dhan waa isku xiran yihiin maan waxayna awoodi karin hadeen bini aadamku laba fara wax u awoodi karin ilaahay waa mafarin la soo baxa qor 10 صفحه la qoro 10 صفحه la qoro 10 waa qorna waa daal macalin waa ma yeelasma gaarin qor hawa ma qori karno ardada wax dagaal naga dhaxeeyo ma jiro marka aan ardadeena aan dhaqaaleysano oo macalinku isku kalifin waxay inta wartooda ahayn hadaad maada dhigto wax lagu barto in celiska lagu barto intoon gabaya u dirtay gabaygu waa badan yahay meeqa beesh konton beet waxaan ka rabaa berito in laga soo baxo macalin kale meeq u diray intii oo kale macalin kale intii oo kale ardaygaas ma awoodo waa goynaya macalina wuxuu ii sheegay anoo habeen socda meel ilmo adwaana ku xareysan yihiin waxaan ku arkay cunug kamida ilmihiiba meelaha taagan magaalada war maxaa kugu dhacay meeshii aan ka soo tagay ana u socda soo bax maqaayadan tagnu yiri wax ka siiyay meeshii aan geeyay markaan ganjeel ka gali rabno meesha oo aan ganjeel ka galay fak waa soo cararay waa ka soo daba orday meel dhaxan ku qab dad baa yiri maxaa ka rabtaa wiilkan waalidkiisa inta degan hooyadiisa u geeyay hooyadiisa ugu soo dartay markii aan meeshii geeyay waxaan ku yiri maxaa dhibaato ka haysto wuxuu yiri casharka berito ima diyaarsanay wixii laga rabay ma diyaarsanay sida darteed ma tagi karo macaan ana kula diyaarinaya kale marka waxay keeni kartaa sababaha ee ardadu uga tagaan iskoolka macaan hebel uga tagi waana igu ciqaabaya waana igu dhibaya waana xusaaraya culays badan tii aan dhihinay ardada inaan dhaqdhaqaaqa dhan loo diido oo la yiraahdo haye galaaska hadaan soo galo waa ahad nuxsada ayuu jirin edab loo fadhiyo dhaqdhaqaaq ma jiro ilmo yar oo saan hadhow markay weynaadaan waxaan leenahay madaxweynuhu noqday meeluu madax ka noqday dictator uma baahnin yaa soo saaray dictatorka soo anima soo saaray hadhow yaa soo saaray kaligi taliye yaa soo saaray ardayga intaas annaga wuxuu soo dhigaynaa maalintu ka soo baxay maxaa inaan neefta wax dhan xisaab socota macalinku feeri قالميا وحكلا حكومة مثلا هو مربي مربي هو والله هو أرك أنت أكو حكومة نبى وحوليه مالبان إميد وحنكو أرك معلن كيجي أضيء أهدأ الله معلن كيجي وكنا وأنا أدأ هو أرك مثلا الله معلن كيجي أنت وحي يدي يجري وحي يجري كم حسوسي وحي يجري واحد اللي بيكرم بأجره وانكو واحد توسنيه